aan rabaa inaan u tacsiyeeyo oon u cudur daaro dadka muqdisho ku dhiban ee la barakiciyey aan odhan karo odayaasha golaha mustaqbalkuna shaqo badan bay ka hayaan wax walba isku dayeen tanaasul badan bay sameeyeen laakiin reer muqdisho waan idinla qaybsanaynaa dhibka aad qabtaan waan idinkula jiraa waxaadna ogaataan dowlad kasta oo timaadaay dadkaa la dulmiyey ee la barakiciyey inayna ku socon doonin qof kasta oo dhulkaas dulmiga iyo dilaalayda samaasirada hadda soo baxay waagi hore waxaa jirtay hogaamiye kooxeedyo iyo dagaal oogayaal iyo hadda dhul boobayaal iyo dhul sharciyaystayaal iyo dhul dilaalayaal baa jira in laga daba tegayo oo sharcigu loo siman yahay qof walbana ha u calaamadaysnaada meesha uu deganaa dowlad kasta oo timaada taa way ka daba tegaysaa taasaana hadafka golaha mustaqbalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladdu ay yihiin waxaan odhan lahaa madaxweynihii hore madaxweyne xasan nin odayaa tahay taariikh baad soo martay ha ku khaatimo xumaysanin kuwa kaa xoog badan oo kaa awood badan baa sidaa ku joogi kari waayey talada dhulka iska dhig dadka isugu yeedh haddii kale maalin walba qof waliba siduu kaaga tegaya adigoo keligaa yaad ku soo hadhaysaa carruurtaadana uquba uga cabso hahda iyo habaarka iyo cuqubada dadka waalidiinta waaweyn iyo dadka dhahala iyo kuwa lugahala iyo ka soo yeedhaya waalidiinta iyo maanta kuwii ciidanka ahaa ee dagaalka shabaab iyo inay waddan difaacaan u joogay haddana reerahoodii la barakicinaya waa dhibaato xoogla ku dhacaysa aad iyo aad baan reer muqdisho waxa ku dhacayana uga cudur daarayna waana idinla qaybsanayna soomaaliya maanta dowlad dhexe ma jirto wakhtigeedii wuu dhammaaday waxa maanta garoommada iyo xanibaadaha iyo deegaanada wax walba la siyaasadaynaya wax lagu aamini karaa ma jiro dowlad dhexe oo wax lagu aamini kara oo wax lagu hadlayn karaa maanta soomaaliya kama jirto sidaa daraaddeed waan soo saari doonaa mowqifkayaga waanan caddayn doonaa golo mustaqballa waan ku caddaynay ka jubbalandna waanu ku caddaynaynaa soomaaliya waxay u baahan tahay dib taladeeda in gacanta dadka lagu soo celiyo